dabkan oo ka dhacay mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee ku yaala waddankan Uganda ayaa ahaa mid aad u xooggan geystayna khasaare hantiyeed oo aan yarayn. Dabkan oo aan la garanayn sababta dhalisay ayaa qaybo badan oo ka mid ah suuqa Awino ku baahay ee magaaladani Kampala, waxayna saqbarkii xalay dadweyne aad u tiro badan ku soo baraarugeen dabkan oo samada isku shareeray, isla mar ahaantaana ay u soo gurmadeen ciidamada damdamiska iyo qaar ka mid ah booliska dalkan Uganda iyo dadweyne aad u tiro badan kuwaas oo ku guuleystay inay dabkani damiyaan. Inkastoo la sheegay inay hanti badani ku burburtay, hore ayaa suuqan Awino dab uga kacay sanadii 2010 kaasi oo dhaliyay khasaare kan la mid ah. Iglan Saalax Cali, telefishinka caalamiga ee Kalson TV, Kampala.